بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سدوادا مركلي مع العبقري يوتيوب channel وchannel كي لغة براتين هذه جرنات كلا ساعتان برشة اللغة الإنجليزية سدوادا برشة نقول تحن بنقول مهد علينا وكفاية فرصة si ay u gaarto dadka ama ardada aadka u danaynaya Soomaaliyeed dunida dacalaheeda kala jooga fadlan laagta iyo shaarta ugu dadaala insha Allah bulshada kale dareenaysana waa soo dhaweynaynaa fadlan dada ka mid ahayn dadka ku tixan channelkan fadlan rukumo si aad si joogto ah casharo ugu hesho insha Allah maanta waxaan wadnaa buuggii koowaad oo inoo socday loo yaqaanay buugtii loo yaqaanay 4000 essential English words ka ahayd buuggii koowaad ayaa inoo socday oo aan wali inoo dhammaanin unitkii 21aad qaybtiisii koowaad ayaan insha Allah maanta sharaxi doonaa balse haddaad danaynaysaan oo aad jeceshihiin inaad lixda buugtu lix kuwa ka kooban yihiin 4000 essential English words la yiraahdaa fiidiyoyay leeyihiin dhawaaqooyay leeyihiin waa erayo jumlada la gelinayo erayasna waxay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan oo dhan ay saameynayaan luqadda laga kala keeno waa academic haddii si kale aan u dhahana buugtu waxay la socdaan levelska A1 iyo A2 iyo B1 iyo B2 iyo C1 iyo C2 oo standardka ah oo maaragtay qaabka luqadda ama luqadaha reer Yurub loo barto ah levelskaas ay maaragtay haddii si loo fiirsana ay ku maaragtay mid walba level noqonaya sidoo kale loo eegana meel walba dad caafimaad dad waxbarasho kale dad maaragtay business meel walba tan oo area aad ku arkayso looguna talagalay luqadda inay meelo badan laga keenay soo dhawaada buugtaas ayagoo lixdooda oo diyaarsan macal fiidiyooda macal waxooda leh ay qiimo jaban ku heleysaan waxaana ka heleysaan Cabqari Online Academy oo duruusa caadiga oo shahaado lagu qaadanayo ay ka socoto soo dhawaada fadlan halkaad nagala socotaan waa Cabqari okay macal Cabqari YouTube channel ay raado waxaan bilaabaynaa insha Allah unitkii 21aad chapterka buuggii ahaa 4000 essential English words book 1 unitkan waa 21 baartigii koowaad laba baarti awal hal mar aan soo wada digi jiray laakiin hadda waxaan ka dhigay laba baarti 1 iyo baarti 2 B A iyo B unit kasta soo dhawaada balse sida caadiga ahayd intaanan u galin sharaxaadda iyo macnaynta aynu dhageysan insha Allah Unit 21 Word list Appear. To appear is to seem. She appeared to be sad. She was crying. Base. The base is the bottom of something. The base of the table has 3 legs. Brain. The brain is the organ in your head that lets you think. You must use your brain to solve the problem. Career. A career is a job that you do for a large part of your life. He was in the hospitality business for most of his career. Clerk. A clerk is a type of worker. Clerks in a store help customers. The clerk added up her bill for the groceries. Effort. Effort is hard work or an attempt to do something. He always puts a lot of effort into his studies. Enter. To enter a place is to go into it. 2 guards greeted me as I entered the front door. Excellent. When something is excellent, it is very good. I got an excellent score on my school test. Hero. A hero is a brave person who does things to help others. To children, the man in the blue and red costume was a real hero. Hurry. To hurry is to do something quickly. I hurried home on my bike. inta waxaa noogu dhammaaday dhageysigii 10 ayaan sharaxaynay marka insha Allah markana sharaxaad halka nagala socotaan waa Macal Cabqari YouTube channel
insha allah la socosho wanaagsan fadlan subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta waa dhankaaga insha allah bulshada nagu tixana si ay maaragtay insha allah bulshada kale u gaarto fadlan like-ta iyo share-ta kuwa cusub insha allah waa soo dhaweynaynaa ereyga ugu horeeya appear waa muuqasho waaye soo bannaan bixid ama muuqasho. To appear is to seem. Erga to appear is to seem. Seem iyo appear waa isku mid. She appeared to be sad. Waxay u muuqatay inay maaragtay murugaysan tahay. She was crying wayna ooynaysay. Base waa salka hoose shay ama wax. The base is the bottom or bottom of something. Waa salka hoose wax. The base of the table. Salka miiska has 3 legs. Wuxuu leeyahay 3 lugood. Ereyga xiga brain waa maskax. Brain waa maskaxda. Brain is the organ. Brain maskaxda waa organ in your head kamida macnaha madaxaaga ku jirta that lets you think ku ogolaanaysa inaad fakarto macnaha waa unug kamida ku jira maskaxda madaxaaga that lets you think kuna ogolaanaya inaad fakarto. You must use your brain. You must waxay muujinaysaa waajib waxaa la yidhahdaa modal auxiliary waa waajib inaad isticmaasho maskaxdaada to solve isaad u xaliso the problem dhibaatada. Career waa xirfad qofka ama shaqadiisa. Career is a job that you do for a large part of your life. Career waa xirfad waa shaqo that you do aad samayso for a large part of your life qaybta ugu badan noloshaada. He was in hospitality business for the most of his career. Macnaha wuxuu ahaa dadka businesska hospitality soo dhaweeya for the most of his career. Soo dhaweynta ayuu qaabilsanaa noloshiisa shaqadiisa xirfadan shaqadiisa oo dhanba. Clerk waa karaani. Clerk is a type of worker waa nooc shaqaale. Clerks karaaniyaasha in store ee dukaamada help customers waxay caawiyaan macaamiisha. The clerk added wuxuu isku daray half bill for the groceries ama waa raashinkii alaabtii soo iibsatay ama raashinkii soo iibsatay ayuu isagu daray lacagtii laga rabay biilkii laga rabay. Ereyga xiga effort waa dadaal. Effort is a hard work waa hawl adag ama shaqo adag an attempt ama isku day to do something wax ku samaynayso. Effort is a hard work waa hawl adag or an attempt ama isku day to do something wax ku samaynayso. He always puts a lot of effort. Wuxuu mar walba geliyaa dadaal fara badan into his studies waxbarashadiisa. Marka effort waa dadaal waaye. Marka ereyga inuu noun yahay inuu verb yahay meeshaan ku arkaynaa inaa lagu qoray waa noun kan n waaye waa noun kana n waaye waa noun kana v waaye waa verb. Macnaha erey kasta nooca uu ka yahay 8 part of speech-na uu kuu sheegayaa ama waa verb uu ku leeyahay ama waa adjective ama waa adverb ama waa noun ama pronoun. Ereyada marka laga hadlayo ereyada xoogooda marka laga hadlayo 50% ereyada cusub ee noloshaada luqadeed soo galaya noun waaye 50%. 50% ma erey kasta cusub ee aad baranayso waxa u badnaan doona magaca. Sababtuna maxay tahay? Luqadda markii 2 loo dhigo luqadda Englishka 100% markii la dhaho oo 2 loo dhigo dhig ayaaba magacaba. Mar haddii magacu 50% uu ka yahay luqadda muxuu noqon karaa ereyada cusub ay u badnaan karaan marka. Ereyada cusub waxay u badnaanayaan noun. Marka nounka laga soo tago 8 part speech-ka 8 qaybood oo luqadda grammar-ka u ah oo naxwaha u ah waxa ku xiga adjective-ka ku xiga. Waxa ku xiga adjective-ka ku xiga sifada ku xigta. Sifadu waxay ka tahay marka 4 loo qaybiyo 100 haddii 4 loo qaybiyo maxaa 4 rubac waaye. Rubacina 25 sooma 25 sifada ah. Waxa ku xigi karaa 75 waxa qaatayba noun iyo waxa qaatay maxaa la adjective verb-ka 7 waaye. Marka waxa dareemaysaa ereyada ugu badan ee luqadda ee cusub mar baad baranayso magaca u badan doona. Waxa ku xigi doona sifa ku xigi doonta. Saas ogow. Marka verb iyo noun markii lagu baro adjective ama adverb wuxuu yahay
kadibna example la gelinaya oo asaga la macnaynaya kadibna jumla lagu gelinaya intaas waa marka erey buugtan lixda ah oo dhan oo 4000 la yiraahdo iyagu waa ereya bis waaye ereyga ku sheegay dhawaaqiisa waa kan dhawaaq halkaas ku qoraya wuxuu ku sheegay aad baas wuxuu ka yahay asaga iyo macnaynaya dan jumla ku gelinaya waa inta kaliya iyo dhageysigiisa ereyga marka he always puts a lot of effort into his studies mar walba wuxuu dadaal fara badan geliyaa macnaha waxbarashadiisa ereygan enter waa gelid waaye waa verb hadda waa gelitaan to enter a place inaad goob gasho is to go into it oo inaad gudaha u gasho two guards laba waardiye greeted me ayaa isalaantay as I entered the front door aastaasi micno badan ay leedahay mar waa if mar waa since mar waa when hadda marka waa when two guards laba waardiye greeted me oo taagnaa albaabka laga wadaa as I entered as waa when I entered markaan galay the front door albaabkii hore markaan ka galay laba waardiye ayaa isalaantay waaye marka enter gelid waaye effortina dadaal waaye kalaagna waa karaani wax loo yaqaano waxaan u gudbaynaa ereyga xiga excellent waa aad u wanaagsan waa excellent waa outstanding hadda si kale u dhaho excellent waa very 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 waa dhowr very la isku daray marka waa boqolkiiba boqol qofkaas aad u wanaagsan yahay when something is excellent hadii waxay excellent yihiin it's very good aad ay wax u wanaagsan yihiin I got an excellent score waxaan helay aad u wanaagsan on my school test imtixaankayga iskuulka goddan waxay ka timid get waa inaad barataa isbedel luqad marka la baranayo sideedaba saddex tiir ayaa laga bartaa oo leedahay mid saddexaad mid afraad ma jiro kow waa inaad ereyo badan luqadda ka taqaano waa luqadda doonta ha ahaato waa inaad ereyo badan ka barataa luqaddaas labo waa inaad luqadda sharcigeeda taqaano saddex waa inaad dhawaaqa pronunciation waa grammarka waa vocabulary-ga waa pronunciation saddexdaas marka luqadda asaas u ah markaas aad wax akhrinaysid ama passage aad akhrinaysid wuxuu ka kooban yahay saddexdaas waa ereyo iyo arrangement of words-ka iyo ereyada sida la isugu arrange gareynayo jumlad ahaan iyo booskood midba loo geynayo grammarkii ah iyo dhawaaqii sida ugu dhawaaqi lahayd erey iyo jumla ahaanba ama phrase ahaanba saddexdaas waa grammarka inaad barato waa inaad ereyo badan barato waa inaad dhawaaqana barato saddexdaas ka kooban tahay kadib waxaa imaanaya afarta scale oo loo yaqaano scaleska wax loo yaqaano listening scale writing scale reading scale iyo speaking scale haddaba marka ereyga xiga hero waa geesi waa geesi a hero is a brave person ereyga brave waa geesi waa sifo marka hero is a brave person waa shakhsi geesi ah who does things kaasoo qabta shayaal to help others wax uu dadka kale ku caawinaya sameeya to children caruurta the man in the blue and red costume caruurta ninka dharka bluega iyo guduudka wata was a real hero wuxuu ahaa geesi dhaba ayuu ahaa marka was a real hero was waa istiyo baasi noqoto iyo amtiyo baasi noqoto waaye markii la joogo baasti artona weeray noqonaysaa ereygan harry waa degdegid waaye qofku inuu degdego meel u degdego shaqo howl u degdego to hurry is to do something quickly waa inaad wax si dhaqsi aad u qabato I hurried home on my bike waxaan guriga ayaan u degdegay anigoo wata my bike baaskiilkayga hurry marka waayda la tiray ayaa lagu bedelay kadibna ed marka laga hadlayo luqadda qaabka verbka basiga looga dhigo ayaa laba looga dhigaa regular verbs iyo irregular verbs waxaa jira koorsooyin aan bixino oo ka kooban ardada aadka ugu liidata tenseska sida active voice-ka sida passive voice-ka sida active voice-ka sida conditionaliska iyo report speech-ka waxaan u helaynaa koorso kooban oo 3 bilood oo bis khidmo yar laga qaadayo ee lagu barayo dhammaan excellent uu ku noqonayo verb changeska isbedelada verbska waana meesha ugu muhiimsan oo maaragtay luqaddu ay qofkii aad u fahmaa ilaan verb change-ga wax isbedel nounka iyo adjective-ka adverb-ka aaday muhiim yihiin laftigooda
laakiin waxaa aad muhiim ah verb change-ga la socoshadiisa waa meel ardada ku liitaan koorsaan heli doonaa halkan nagala socotaan waa cabqari macalin cabqari youtube channel ay raahdo si lamidana cabqari online academy waxaa ka socota duruusii kala duwaneed soo dhawaada aad baan idin salaamayaa inta waxaa inooga eg buuggii koowaad unitkii 21aad qaybtiisii a qaybtii koowaad soo dhawaada course kala duwana waa idin helaynaa waxaad nagala soo xiriirsan numberkan halkan whatsappka 5 eber 6 eber 9 eber 9 si qaas wuxuu raba qofkii uu raba si freena casharada qaar inkastoo mar walba casharada badan aysan joogto looga helin laakiin weekii baan soo gelin doono qofkii si gooni uu raba insha Allah koorsooyin kala duwan oo hayna luqada ومعلال عبد النور محمد سمطر أستاذ عبقري هالكنا ومعلال عبقري يوتيوب channel وأنا نسود وينيا فضلا سبسكرايب لايك وحقنا أبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته